in laga guuro mareenayada oo macnaha halkaas laga guuro oo hadda xoogaa caqabada iyo waxay ka dhalatay ka waran xagee maraysaa iyadu arrintaas go'aan ka soo saarnay ex marina waa meeshii ciidanka badda uu lahaa dhulkiisii oo uu ku jiro gurigii taliyaha dhulkaas isaga waxaan soo saarnay in ilaa iyo xeebtaba inay noqdaan goob diblomaasiyiin annaga magaaladan inay bilicdeeda soo noqoto magaalo caasimadda ay la tartanta caasimadaha adduunka si ay u noqoto aniga waajibka waada way saaran duq magaalo waxay tahay in diblomaasiyiinta goob loo helo goobtaas goob dowladeed waaye dan guud waaye xerada mariinada waaye waa la yaqaanaa cidda maanta ku doodaysa inay dukumenti u haysato waa nasiib daro marka horeba inay dukumenti qaataan loo sameeyo ma ahayn waddankan wuxuu gaaraa mar lala xisaabtamo qof kasta oo dembi ka gala nin kastoo hogaamiye kooxeed ahaa nin kastoo dad dilay nin kastoo dembi galay nin kastoo hanti boobay maraan fogeen maxkamaddan waa la soo saaraa muxuu ahaa ummaddana way la xisaabtami doontaa arrintaas iyadaa marka annaga dikreetaan soo saarnay goobtaas in la banneeyo dikreetadana weli waa sideedii waxaa jira dad dhahayo dukumenti aan u haysanaa waxaan ka codsannay qaarkood la fariisanay inay noo yimaadaan wixii dukumenti ay haystaan ay keenaan ma dukumentigoodii ma si qaladaa lagu bixiyey ma sax u ahaa ma muxuu aha ma dhul kale iyo wax kale loo raadinaa maxaa laga yeelaa waxaasoo dhan annaga diyaarana laakiin cid ka soo horjeesan karto go-aanka aan bixinay ma jirto cid is-hortaagi karto maleeshiyaad keensan karto ma jirto dowladnimo inay socotaa la rabaa waa ku dhimanaynaa in dowladnimadaas ay hergeshana waa iga go-an tahay aniga